kulan wacan akhyaartana daawataa meel walba aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan janaal kale waaye films oo warbixinada ugu dambeeya ee arrimaha Bollywood la xiriira aad ka daawataan. warbixintana maanta waxaan ku soo qaadanaynaa maxaad ka ogtahay 10 filim oo iska diiday Salman Khan ee maanta guulaha waaweyn gaaray. filimadaas oo inta badan uu sameeyay saaxiibkii Shah Rukh Khan. waxaa jira sababo ay xidigada filimada qaar iskaga diidaan sida aysan fursad u haynin, qarashka oo yar ama sheekada filimku aanan qancin jilaaga iyo sababo kale. Salman Khan waa xidig lagu yaqaan in filimadiisa ay u soo daawasho tagaan dad badan, wuxuuna box office-ka ka soo xareeyaa lacag waali ah. haddaba aan isla aragno 10 filim oo iska diiday Salman Khan. filimka koowaad waa Jagte India. wuxuu Salman Khan ku jiri lahaa macallin gabdho tababarayo ciyaarta, laakiin wuu iska diiday filimkaas waxaana doorkaas qaatay Shah Rukh Khan. filimka labaad Bazigar, xidigan ayaa iska diiday filimkaas sababo la xiriira xagga hooyada. filimkaasna waxaa sidoo kale mar labaad la wareegay Shah Rukh Khan. filimka saddexaad waa Zero. Salman Khan ayaa filimkaas loo soo bandhigay, laakiin Shah Rukh Khan ayuu u soo bandhigay oo uu sameey ku dhahay, sidaasna waxaa kula wareegay Shah Rukh Khan, halka Salman Khan oo muuqaal gaar ah oo ku lahay oo hees ka mid ah filimkaasi ku jirtay. filimka afraad waa Josh. dabcan waa fahmi kartaa sababaha uu iskaga diiday filimkaas, wuxuuna diidanaa in Aishwarya Rai ee filimkaas uu kula matalo walaalo maadaama ay saaxiib ahaayeen xilligaasi. sidaasna filimka waxaa ku sameeyay Shah Rukh Khan. filimka shanaad waa Bajirao Mastani. Sanjay Leela Bhansali ayaa jeclaa inuu filimkaas u wada dhiibo Salman Khan iyo Aishwarya Rai, inkasta ay kala hareen uu sidaas ku baaqday, waxaana la wareegay Ranveer Singh iyo sidoo kale Deepika Padukone. filimka lixaad waa Dilwale Dulhania Le Jayenge. Yash Chopra ayaa aad u jeclaa inuu filimkaas u dhiibo Salman Khan, laakiin ma rabin in uu jilo door wiil jecel hayo oo England ka yimid, sidaasna waxa uu la wareegay filimkaasi Shah Rukh Khan. filimka toddobaad waa Kal Ho Na Ho. Salman Khan ayaa filimkaasi la rabay in uu jilo Ator Caawi, wuuna iska diiday, waxaana bedelkiisa galay Saif Ali Khan. filimka sideedaad waa Gajani. kadib markuu Amir Khan akhriyay qoraalka sheekada Gajani, wuxuu u soo jeeday Salman Khan, laakiin Salman Khan wuu iska diiday, waxaana jilay filimkaas Amir Khan. waana filimka ugu horeeya ee 100 crore soo xareeya oo filim Hindi ah ee la sameeyay. waxaa jira filmo kale oo Farhan Akhtar u soo jeeday Salman Khan, inkastoo filmadaasi aan la shaacin, laakiin uu Salman Khan iska diiday sida la sheegay, waana filmo gaaraya ilaa 2 filim. 10kaas filim ayuu xidigani Salman Khan iska diiday, inkastoo haatan uu yahay atooraasho ugu sareeya markay tahay filim jilista iyo in lacag badan ay soo xareeyaan box office-ka. waa isaga muddo 10 sano uu soo hogaaminayay. waad ku mahadsantahay dhageysiga iyo daawashada warbixintan. la wadaag asxaabtaada haddii aad warbixinta